si kedisa ayaan gadaasheeda waxaan uga maqlay shanqar. Si degdeg ayaan kusoo fiiriyay misana qofna maana ku arkin. Qolkii kale ayaan soo galay iyo meydad ka yaaleen misana waxba waan ka waayay. Waxaan arkay waxaan aad uga naxay. Waxaan arkay qaybtii aan hadaaya tixray oo weli furan. intaan muuqaalku u guda galin in waxaan ka codsan lahayn inaad channelka subscribe saarto. waxaan doonaynaa inta aan la gaarin ramadaanta ka hor inaan gaarno 30,000 oo subscribe. marka haddii aad subscribe hore u saartay videogan like saar si uu dad kale oo badan u gaaro ay iyaga u saaraan subscribe. magacaygu waa Jack. 5 sano ka hor ayay ahayd markii ay ku dhacaysay dhacdadan. xilligaas waxaan ahaa mid ka shaqeeya isbitaal ku yaala magaalada. waxaan ahaa mid ka shaqeeya qaybta dadka geeriyooday ama meydka ah. waan soo xiri jiray oo waxaan soo dhexgelin jiray bahal loogu talagalay. waxaan keeni jiray qaybtii loogu talagalay oo aan gelin jiray qaybtaas. intaas oo kaliya ayaan qaban jiray oo aniga shaqo kale oo aan qabanay maysan jirin. waxaan ahaa mid qoro reportyada qofkaas iyo waxa uu ku soo geeriyooday. habeenada kamid ah waxa soo wacay supervisorka ama manager wuxuu nagu yiri ninkii kale ee kula shaqeynaya ayaa baxay. waxaana loo baahan yahay in shiftigiisa aad adiga buuxiso oo aad 12 saac aad meesha joogto. awalkii hore 6 saac oo kaliya ayaan ka shaqeyn jiray. waxaana ku dhahay waa okay haddii lacagta lii kordhinayo. waxaana la tusay waraaqadan waxaa ku qornaa heshiis ah inaan meesha ka shaqeyn doono 6 maqribnimo ilaa 6 subaxnimo isbuuc. shaqadeydii ayaan 3 habeen ugu horsay caadi iskaga wadsay oo qof walba reportkiisa ayaan qorayay. wax walbana sidii caadiga ah ama dabiiciga ah ay u socdeen. habeenada kamid ah anigoo fadhiya qorayana mid kamid ah dadkii geeriyooday reportkiisa waxaa si kedisa message igu soo diray mid kamid dadkii aan iskala shaqeynayna meesha. isagoo igu yiri si degdeg ah weymow. uu igu sheegay in uu jiro nin hadda dhow dhintay kaasoo kusoo dhintay shil gaari. marka waxaa loo baahan yahay inaad soo qaado aadna geyso meesha loogu talagalay. waxaana arkay 3 dhakhtar oo kasoo socoto dhanka iyo qolkii qalinka kuwaasoo dharkooda uu yahay mid wada dhiig ah. waxaana noo sheegay in qofkan aad u soo rafaaday ama aad wax uga khaldan yihiin. aniga waan soo baxay waxaana soo galay qolkii waxaana ku arkay wax aan aad u la fajacay. ninkan wuxuu ahaa mid ka duwan dhammaan dadkii kale aan arki jiray ee meydka ahaa. wuxuu ahaa mid jirkiisa aad moodo in bangad lagu soo jarjaray. jirkiisa wuxuu ahaa mid aad looga naxaayo. sidoo kalena waxaa caadi u muuqday lafihiisa. waxa kasii daran wejigiisa. waxuu ahaa wejigiisa mid afkiisa uu kala qaadan yahay. aadna dareemaysid ninkan inuu silac aad u tiro badan maray. wejigiisa dhinaca bidix waxay ahayd mid aad dareemaysid in wax aad u xooggan ay kaga dhaceen. aniga aad ayaan ula yaabay. waxaana si kadisa geeskay ku taabtay ninkii aan isla shaqeynin. wuxuu yiri waxaad meesha la taagan tahay ma hawshaada qabsatid. haya ayaan ku dhahay hawsheedii ayaan iska bilowday anigoo yaaban. ninkii ayaan xiray waxaana u qaaday qaybtii fridjka ama fridjeerka ay dadka gelin jiray ee kor ku taalay. waxayna ahayd markii ugu horeysay ee aan ka yara cabsado qof meyd ah. awalkii hore si caadi ayaan dareemi jiray laakiin hameenkaas way iga dooneed. meydka ayaan soo qaaday qolkii ayaan keenay waan ka furay. waxaana geliyey meeshii loogu talagalay waana iska soo baxay. waxaan imaaday qolkayga si aan reportkii u qoro. waxaana reportku qoray inuu yahay nin kusoo geeriyooday gaari shil ahaa u galay. habeenkaas waa igaga duwanaa habeenadii kaleeto. waxaan dareemaya cabsi aan aqoon meel ay iga imaatay. anigoo sidii reportkii u qoraya wadana reportkii hawshiisa ayaan waxaa si kadisa u maqlay shanqar ka yeerayso qaybtii aan joogay gadaasheeda. waan yaabay. waxaan soo istaagay si aan u fiiriyo shanqarta meeshay ka imaanayso. waxaana soo aaday qaybtii barandada ama waa howlka u ahayd meesha meydadka. waan socday misana waxba maanan arkin qofna ma aanan arkin. si kedisa ayaan gadaasheeda waxaan uga maqlay shanqar. si degdeg ayaan kusoo fiiriyay misana qofna maanan ku arkin. qolkii kale ayaan soo galay iyo meydad ka yaaleen misana waxba waan ka waayay. waxaan arkay waxaan aad uga naxay. waxaan arkay qaybtii aan hadaaya tixray oo weli furan. waan soo aaday qaybtii waxaana soo bixiyay ninkii. waxaan arkay waxaan aad uga siyaabay. waan fiiriyay ninka wejigiisa waxuu ahaa markaan mid afkiisa isku xiran. markii hore wuxuu ahaa mid afkiisa kala furan yahay balse markaan afkiisa waa isku xirnaa. indhihiisuna waxay ahayn mid isku yar imaadeen. aniga waan yaabay. waxaan isdhahay inuu aad ba u dashaan umalaynaya hawsha badan ayaad qabatay ama shaqada badan ayaa ku jirta waqtiga badan ayaa waxaas ku keenay. waxaan rabay xilligaas inaan soo baxo. waxaana ii go'aansanayd inaan waco supervisorka aana u sheegay inaan xanuunsanahay. gadaal ayaan wax ka maqlay shanqar bas haddaan soo fiiriyay waaba ninkii meydka ahaa oo soo socda. weliba isagoo ka da'ayo dhiig aad u tiro badan. waxaad moodaa dhiigga wejigiisa ka da'aya sida dhidid oo kaleeto. indhahan waxay uga da'ayeen sida ilinta oo kaleeto. aniga waa naxay. wadnahay istaagi gaaray. hal mar ayuu ninkii istaagay waa uu soo fiiriyey. jirkiisa waxuu ahaa mid wada dhiig ah. meel kastoo jirkiisa ka midna waa ay dilaacsaneyd. dhiiggana waxaa meesha ka dhigay sida biyo oo kaleeto. waxaan dhahay adiga sidee ku nooshahay? waxay ahayd inaad geeriyooto. si qosol aad u cabsi badan ayuu dhahay. waxaana dhahay midaas waa la ogyahay
anigana haddaa ku ka hortaagan miihi qof nool oo caadi ah. aniga naxdin aad ayaan u jiray, waxaan isdhahay qof dhinta sidee u hortaagan tahay. hal mar ayuu si xoog igu soo imaaday, wuxuuna igu soo fiiriyay in laga cabsanayo. ma qiyaasi karo xaalad aan xilligaas galay. naxdin iyo walwal zaa'id ah ayaa igu soo kordhay oo aan weligay dareemin. wuxuu ahaa mid aad igu dhow. hal mar waxaan ku dhahay maxaan kaa caawiyaa, maxaad rabtaa oo anaad iga rabtaa? waa uu sii dejiyey, wuxuuna yidhi waxaad ii samaysaa keliya waxaad sheegtaa runta. waxaadna u sheegtaa inaan aniga dhintay ka hor inta aanan shilka gelin. aniga shilka kuma aanan dhiman ee ka hor ayaan dhintay. cadaaladda hala raadiyo, runtana hala ogaado, haddii kale iyada waxay noqonaysaa firi. si kadis ah waxaa meeshii ku imaaday ninkii asla shaqaynaynay ee la socdaan 2 dhakhtar. markii ay meeshu istaageen ayuu uga yidhi wariya ilaa xilligan maxaa meesha ka qabanaysaa? waxay idinta xilligan iska baxdo, hawshaada ku dhammaatay, maxaa meesha ka qabanaysaa? gadaal soo fiiriyey misena xoogaan waaye. wax walbana sidoodii ayay ahaayeen. dhiiggii iyo wixii meesha ma yaalaan, ninkii meesha ma joogo. aniga waa naxay. wuxuu soo baxay, waxaana dhahay niyow aad u daashay, waxaana waxaad adiga sawiratay niyow iska naso oo orod iska bax guriga iska aad. waxaan ku dhahay niyow waxaa idiin sheegayaa ninkan ani ilmahan inuu iska dhintay ama bashil uu ku dhintay. waxaan u malaynayaa in ninkan la dilay ee wax kale ka dambeeyaan, bal hala soo ogaado. aniga borsidaas kasoo qaato waan iska soo baxay. subaxdii markii la gaaray ayaa kool iga imaaday isbitaalkii, waxaana isoo wacay ninkii aan iskala shaqaynaynay. wuxuuna igu yidhi warniyow wixii xal aa sheegaysa waxbaa ka jiray sidee ku ogaataniyow? waa bala yaabanahe. waxaan weydiiyey wax uu ka hadlaayo, ariga uu ka hadlaayo. wuxuuna igu yidhi niyow ninkii aad xalay dhehaysay shilkuma uusan dhimanin, runtaa ayay ahayd oo ninkan shilkuma uusan dhimanin waa la dilay. marka kiiskiisana waxa uu ahaa kiis dil ah ma uusan ahayn nin iska dhintay oo shil ku dhintay. marka aniga waxaan soo xasuustay in adiga ahayd qofkii xalayta dhahayay. walwalaaya igu soo kordhay, dhidid badan ayaa iga yimid. waxaana dareemay in wax walba xalay dhacay ay ahaayeen wax run ah, aysan ahayn wax aan iska sawirtay. aniga garaaca wadnayga wuxuu ahaa mid aad u ziyaaday. waxaana ku sigtay inuu wadna istaago naxdin daraaddeed. dhididkii wuxuu ahaa mid aad iga soo daaya. waxaana maxkamad lagu qaaday xaaskii amaba qoftii saaxiibada ahaayeen ninkaas. waxaana lagu xukumay xabsi daa'im maadaama lagu oogay inay tahay qofka dilay ama dilka geystay. aniga xilligaas kadib hawshaydii ama shaqadeydii kamaan tegin, waana iska sii watay. naagtin waxay dinta xabsiga la geeyey. markii u dambeysay ee aan kulanno ninkii waxay ahayd habeenada ka mid ah. habeenkaasna waxaan soo xareeyay meyd. waxaana rabay inaan xilligaas baxo riboodkiisa qoro, balse si kedis ah waxaa iga soo horbaxay ninkii isagoo markaan ka duwan sidii hore, isagoo aad moodid inuu faraxsan yahay, dhoola caddeynayo, dhiisna ay ahayn kuwa aad u kala qaadan. waxaan dareemayay inuu yahay ninkii aniga naxdin mar kale iyo naxdin kaleeto. waana walwalay. wuxuu ahaa mid aan xilligaas ila hadlin. waxa uu nii tahay gacanta isagoo ii muujinay macsalaama oo kaleeto, kaliya wax kalena imausan dhihin. hal mar ayaana waayey, waxayna ahayd markii u dambeysay aan isaga arko. fadlan haddii aadan weli subscribe inoo saarin, subscribe inoo saara si aan u gaarno hadafkeena oo ah 25,000 muddo kooban gudaheed. midda kale dadka subscribe-ta inoo saaray aad ayay u yaryihiin oo waxaa ka tira badan inta qof ee aanan inoo saarin ee videosheena daawatay. marka isku day inaad subscribe inoo saarto, sidoo kale aad videoga qurxiso adigoo taabanaya like. aad ayaad u mahadsantahay.